Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada ku xiran janaalka layaabka media ee YouTube, kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta waxaa idiin haynaa dadka ugu xubnaha dheer dunida ayaan muuqaalkeena maanta kusoo qaadan doonaa. Daawade ka hor inta aanan bilaabin muuqaalkan, fadlan subscribe noo saar janaalkeena, aad ayaad u mahadsan tahay. Nick Toy Barrell ayaa haysta rikoorka buugga dhacdooyinka caalamka, ayaana ah ninka ugu carabka dheer dunida. Nick ayaa carabkiisa kusoo taaban kara sankiisa iyo suxulkiisaba. 31 jirkan kasoo jeeda wadanka Mareykanka, gaar ahaan caasimadda California. Ninkan ayaa ku dhib qaba marka uu cadeysanayo carabkiisa oo dheer. Nick ayaa aaminsan inuu hibo gaar ah u leeyahay carabkiisa aadka u dheer. Nick hadda waa majaajiliste, sidoo kale muusika garaaca. Nick ayaa leh YouTube uu kusoo bandhigo wax walba uu ku sameeyo carabkiisa dheer. Ninkan ayaa markii dambe 2015 ku guuleystay rikoorka buugga dhacdooyinka caalamka. Ninkan ayaa ah ninka ugu sanka dheer caalamka. Dhererka sankiisa ayaa ah 8.8 centimeter. Mohamed Ozirak ayaa kasoo jeeda wadanka Turkiga. Mohamed ayaa lagu martiqaaday TV show ku yaala Rome, Italy. 71 jirkan ayaa ka qayb galay mar dambe tartan ka dhacay wadanka Turkiga, wuxuuna ugu guuleystay ninka ugu sanka dheer caalamka. Sudan iko jirkan ayaa ninka ugu afka weyn dunida. Ninkan ayaa afkiisa gelin kara waxaysan dadka afkooda gelin karin. Francisco Domingo Joaquin, ninkan ayaa ah dhererka afkiisa 17 centimeter oo balac ah. Francisco ayaa kasoo muuqday TV show, wuxuuna afkiisa geliyay dhaladan saxanka ah, koobka kofeega iyo dhalada khamriga. Francisco ayaa dhahay, waa riyo ii rumowday in aan ku guuleysto buugga dhacdooyinka caalamka. Jason Orlando Rodriguez Hernandez ayaa ah ninka ugu cagaha waaweyn caalamka. Ninkan ayaa ku guuleystay buugga dhacdooyinka caalamka. 22 jirkan ayaa kasoo jeeda wadanka Venezuela. Jason Orlando ayaa ciyaara basketballka. Ninkan ayaa ku dhibanaa siduu u heli lahaa kaba lugihiisa lafac yaraantiisa, wuxuuna dhahay, kaba ilafac in la helo aad ayay u adkeed. Ninkan ayaa bilaabay siduu ku heli lahaa kaba lafac markuu uu jiray da'da 16 sano jir. Ninkan ayaa dhererka lugihiisa ah 40.1 centimeter. Jason Orlando ayaa markii dambe ku guuleystay buugga dhacdooyinka caalamka, wuxuuna u safray wadanka Germany siduu ula kulmi lahaa nin kabaha sameeya, waxaana loo sameeyay kaba qaas u ah Jason markii dambe. Sultan Kausin ayaa ah ninka ugu dheer caalamka, wuxuuna kasoo jeedaa wadanka Turkiga. Dhererkiisa ayaa ah 8.3 inches oo dherer ah. Sultan Kausin ayaa ugu guuleystay buugga dhacdooyinka caalamka qaybo kala duwan. Ninka ugu gacmaha waaweyn adduunka, dhererka gacmihiisa ayaa ah 28.5 centimeter ah. Ramsin Johan ayaa ah ninka ugu shaarba dheer caalamka. Ninkan ayaa dhererka shaarbihiisa yihiin 14 feet oo dherer ah. Ramsin Johan wuxuu kasoo jeedaa wadanka India, wuxuuna sheegay in uusan shaarbihiisa jarin 32 sannadood. Wuxuuna ku guuleystay buugga dhacdooyinka caalamka 2010 wadanka Rome, Italy. Ninka ugu shaarba dheer caalamka. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii uu ku qanciyay muuqaalka, ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada. Haddii ay tahay markaagii kugu horeysay, nagu soo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.